waddanka Soomaaliya. baahida keentay in ururkan la saaso ayaa timid kadib markii la ogaaday in baahi weyn loo qabo urur dhalinyaro soo celiya wanaagii iyo midnimadii jasiira ay lahaayeen maadaama dhalinyaradu ay yihiin dhexaadka bulshada. ururkan macnaha laga leeyahay maxay tahay ururkan macnaha la saasayaa in la helo midnimo in reer jasiira aan gaarsiino meel fiican si aan wax ula qaybsano baahinta kala duwan Soomaaliyeed. sidaan inta ka arkayno waxaa waaye qaab dhismeedka ururka sida ururka u shaqeeyo waxaa u horeeya golaha dhexe. golahan wuxuu guddi u yahay golaha dhexe. shaqada ay qabtaan waxaa waaye ilaalinta sharciyada iyo dejinta sharciyada. wuxuuna ka kooban yahay 18 xubnood. golaha fulinta shaqada u qabtana waxaa waaye waa inay fuliyaan howlaha ururka sida haddii la qabanayo mashaariicyo iyo haddii la fulinayo mashaariicyo sida haddii tusaale usoo qaato sida agoonta oo kale iyo in la saacido iskuulka jasiira. golaha marjaca waa sida inta ugu jeedaan waa odayaasha haddii lacal la dhacan khilaafaad isagoo ay ka xaliyaan ilaa qaranka soo dhexgeliya. jaatarka ama qaab dhismeedka ururka marka ugu horeeya golaha dhexe waa marka hore waxaa la asaasay golaha dhexe. golaha dhexe waxay doorteen guddoomiye kadib howsha dhan waxay ku reegaday guddoomiyaha. guddoomiyihina wuxuu magacaabay wuxuu dhisay golaha fulinta kuwaas oo ka kooban yahay 5 xubnood. xogaaya arrimaha gudaha, xogaaya arrimaha dibadda, afhayeenka, lacag hayaha iyo xog hayaha. sababta meeshaan ugu jeedan waxayna tusaysaa yani golaha fulinta si ay u shaqeeyaan. waxaa u horeeya guddoomiyaha, waxaa ku xiga afhayeenka, waxaa kusoo xigta xoghayeenta arrimaha bulshada, xoghayaha dhalinyarada jasiira, xoghayaha isboortiga, xoghayaha maaliyadda, hanti dhowrka guud ururka iyo xoghayaha waxbarashada. sidaan ognahay urur magala asaasa dadka wuxuu ku fikiraan lacagta intee laa keenaa mashaariicda waxay filim intee laa keenaa dad maan sigan ma urur gooni ah hoos kaba tagan oo lacagtaana lagu bixinaa laakiin ururkan maxaas ma lahan garanteeda ilaa hadda ururkan wax dhaqaale yani gooni ah ma lahan laakiin insha allah mustaqbalka waan rajeynaynaa inaan yeeshano dhaqaalo gooni ah. howlaha ururka qabanayo waxaa lagu fuliyaa khadamaadka anta aan iska aragno gaar ahaan golaha fulinta ayaa daboola baahida jirta iyagoo la gaashanaya wixii dhalinyaro cidda ah jecel in wax baxsadaan. mabda ururka aniga maadaama ururka katirsannahay waxaan aaminsanahay waxaan kasoo horjeednaa in baahinta jasiira loo kala qeybiyo ABC taasoo macnaheedu tahay qeybi oo xukun. run ahaantii aragtida waa la isku diidi karaa laakiin mabda ahaan ma la isku diidi karo. haddii la isku diido waxaa imaan karo faraaruq haddii meesha yimaadeen waxaa meesha ka bixisa midnimadii iyo laabtinimadii. taasina waxay saameyn ku reebaysaa dadweynaha oo dhan. keli كلنا كانوا كلي وقف كلي أو يعني وقف بس كريم كلنا ووذجر يوم دنيمه
كانوا ودخاله هذا تصالح سوق هذه الشركة أنا وكلا خوف كلي واحد من قوكرة يعني خوف كلي واحد من ضد كلام سكوكين كلا وقرشات كوب حلا مليب كلا ما يعني الشركة أنا وحكومة هذا كلهم يكانوا فيلم كان محمد تسعة أتكنت إياه حوجينتا مثل ماذا إليهن سنة أبنا هذه مدينة من أي جهة وحي ما نسو سنة وشي قرارو تاسو كي نسو إن لقب سنة بدهينا بريجينا يبرع علينا تاسو أنا مسكو مشغول سنة أو لوكال خيب سنة يو أنا سنيدين متكي سمتيس